يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك ارحم عبيدا واقفا. saaxiibkaaga dhabta ahi maahan kan isbedbedela ama kugu doorsado qof kale, laakiin waa kan kugu jecel si kasta oo aad tahay. dadka xunxun ee noloshaada ku soo biiraya maahan inay adiga kaa dhigaan qof laciif ah. noqo sida ukunta oo kale, sababtoo ah iyadu aad bay u jilicsan tahay, balse marka la karkariyo way adkaataa. noqo qof dhibaatadu ku adkaada. awooddu kuma xidhna inaad lab ahaato ama dhadig, laakiin awoodda saxda ihi waa inaad isku kalsoonaato. hubaal markaas waxaad noqon doontaa hogaamiye ama qof lagu daydo. marnaba ha ku xidhin mustaqbalkaaga nolosha aad hadda ku nooshahay, sababtoo ah nebi moxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaan jiray xoolo raac, kadibna wuxuu noqday hogaamiyaha iyo rasuulkii allah subxaanahu wa tacaala uu u soo diray kownkan aan ku nool nahay. haddaad shalay sidaad ahayd aadan bedelin, berina sidii uun baad ahaanaysaa. qof kastaana wax kasta oo uu jecel yahay ma helo, balse wax kasta oo uu ku dadaalo ayuu helaa. ha ku mashquulin wixii ku soo maray si aysan kuu seejin inta quruxda badan ee kuu hartay. farxaddu maahan inaad hesho waxaad doonayso, ee waa inaad jeclaato waxa aad haysato kuna mahadnaqdaa. dadka waxaa ugu dabeecad xun qofka markaad iskhilaaftaan ama kala xanaaqdaan ilaawa dhammaan wanaaggaagii, kaasoo inkira sharafkaagii, kuguna tilmaamo wax aadan ahayn. marnaba adigu ha nicin dadka kaa masayrsan, adigu u xushmay masayrkooda, waayo waa dadka keliya ee qiraya in aad ka wanaagsan tahay, yacni iyaga inaad wax dheer tahay. adigu iska indho tir shay walba oo kaa fogeynaya inaad farxad ku noolaato. xorna ahaw abidka, ahaw sida aad tahay, hana iska dhigin wax aadan ahayn. weligaa ahaw mid xooggan, dhoola caddayntana u saaxiib ah. calool gaajaysan si la mid ah jaab maran iyo qalbi jabay ayaa ah cashirada ugu adadag ee uu qofku ku noqdo mid adag. adigu adiga is ahaw.